in laba qofood oo kala jinsiyada isjeclaadaan kadibna isguursadaan caad ahaan waa dareen fiican laakiin Soomaalida qaataa waxay ka aaminsan yihiin fikir qaldan iyo dibigii sacabaadida booday hadaba daawada maxaa kala socotaa qisada jacaylka Liverpool iyo Livia Nakatori gabadha cadaanka ahayd jacaylku wadiyo qasamahe waqulubtu qofku yeeshee naqiiqiyo qaylaya buuq haysku qarinine midilay qoray naftu qabatae quyaaga dhigo fanaaniintu iskuma jiraan fanaanka caanka Liverpool ayaa guursaday gabar cadaan oo ay horay xiriir u lahaayeen Livia Nakatori waa in 20 jir ku nool dalka Switzerland waana xaaska cusub ee Liverpool waxa ay ku hadashaa luqadaha Swiss Germany iyo Ingiriiska waana muslimad haysata diinta Islaamka laakiin familkeedu waa Kirishtaan aaminsan Masiixiga jacaylku indhamale uma yaqaan qabiil iyo qolotoona ee hadba qofkii dooq kugu dira ayuu dusha kaaga tuuraya gabadhani ayaa muddo dheer xiriir jacayl la lahayd xaajigeeda Liverpool sanadkii 2018 ay isku barteen aalada Instagram-ka oo ah barta kaliya ee ugu fudud inay ku wada xiriiraan dadka magaca kule bulshada ay ku dhex nool yihiin heesaa jacaylka uu qaado Liverpool ayay gabadhani kaalin weyn ka ciyaartay waana gabadhii loo qaaday heesta baraha bulshada qabsatay ee moolo taasoo Liverpool u hubeeyay saaxiibtii Livia kadib barashadeedii maadaama aysan xilliga isku wadan ku sugnayn Liverpool ayaa iyada ka codsaday inuu helo gabar buuxisa jilinka heesta oo ammaan ahayd waxaana xilliga uu la baxay rugcadaagii soo rogaal celiyay maadaama uu sanado ka hor shaaciyay inuu gabi ahaanba faaruujiyay fanka magaca Liverpool waa magac naynaas oo adiga waa taqaanaa dhalinyaro qof walba naynaas baa loo bixiyaa Liverpool wax dhalinyaro iibiyeen ahayd Liilna waa mid ka yimaado waaye magaciga dhabta waa Salaad Maxamed Cali oo waalidkay ila baxaan go'aanka aan fanka ka soo jeestay aan ka soo gaaray horta waa waxa garab igu siiyay horta Ilaahay hadeeste waa xaaskayga oo ka baxnay in ay sabihin laakiin se wixii dareentay oo in aanan wax fiican aanan wadin marka iyada garab iga siisay alxamdulillah rabbil alamin ilaahay ayadana qaraha ka siiyo Salaad oo ah xidigay aad u jecel yihiin xirta raabka xiisiisa ayaa meega soo qabsaday 7 sano ka hor waxa ay fanka muddo mataana ku ahaayeen dhigiisa hore Donny B oo markii dambe ay kala danaysteen inkastoo Donny toddobaadii dambe daaqada dib u soo qabsaday She Calls Me waxa ay ahayd heestii ugu saameynta badneed xagga dhalinyarada waana heestii magaca uu ku yeeshay Liverpool iyo saaxiibkii Donny B ba She calls me Liverpool بحجم Scandinavia every time I toss my face I push my voice that's my mind Liil ayaa qorsheynaya inuu farxadda jacaylkiisa cusub kala qayb galo show uu xaqiiqan kula hadalka Norway laakiin nasiib darro waxa uu baaqday bandhigaas xaalad caafimaad ee hargabka shimbiraha dunida galgalay taa beddelkeedana waxa uu ugu dambeyntii qolkiisa stuudiyaha loo ekeysay daboolka kaga qaaday digsigii jacaylka waqtiga badan dabka la saarna guud ahaan barnaamijkeena qisooyinka jacaylka oo naga hadlayna qisada jacaylka Liverpool iyo Livia halka ayaan ku joojinaynaa toddobaadkan